aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ee hore shirka jiraa'id ugu sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen maayarka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse isla markaana maanta u ballansanay inay yeeshaan kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maamuuska kaga xayuubinayaan maayarka iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta shir jiraa'id oo ay ku qabteen xafiiska barasaabka gobolka Gabiley ku shaaciyay inay codsi uga yimid xagga barasaabka awgeed ay fadhigoodii dib ugu dhigeen ilaa maalinta Sabtida shirkan jiraa'id oo ay ka soo qayb galeen aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanku ka kooban yahay ayaa waxa ku wehelinayay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine iyo ku-xigeenka barasaabka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Casse ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cali Maxamed Sheekh Salebaan Cali Cadde iyo xildhibaan Cali Axmed Yuusuf Cali Dulduul oo ka warbixiyay sababta ay dib ugu dhigeen kalfadhigoodii maanta oo Arbaca ay u ballansanaayeen maalintii bishu ahayd 23 oo aan ku qabanay shir jiraa'id magaalada Hargeysa golaha deegaanka ee degmada Gabiley 14 xubnood waxaan ballan ku qaadnay in maalinta bishu tahay 25ka maalinta lafteeda oo kalsoonidii kala noqonay oo aan taa ka soo celin doonin kalsoonidii oo kala noqonay mar labaad aan cadeyn waxay maanta tahay ballanteedu inaan fadhiisano hoolkii dawladda hoose si aan maayar iyo maayar xigeenna u doorano xisaaniyada sida sharcigu nafarayana si toos ah u qaado arinta markaan xaloo dhan ka soo jeednay inuu saaka ballanteedu ahayd waxa ergal nabadgeliyo iyo inuu erga dawladda iyo annagaba dhexdhexaadiyo u dhaxgalay mudanaha maayar gudoomiyaha gobolka Gabiley isagoo noo sheegay in wax Allah wixii inaga xumaada wax degmada inaga xumaanayo dawladana codeer ugu gaarsiinayo in sharciyada la dhowro oo sharciyada loo hogaansamo oo sharciyadu ay noqoto maalinta Sabtida anana waxaan waan ka aqbalay codsiga ergadiid waa la diid ergada islaamkana lama jiro waxaanu ergada barasaabka kaga codsan aan kaga aqbalay soo gudoomiyihii ugu sareeyay gobolka dawladda uu yahay cidii wada shaqeyntu hadhow ninka Ilaahay uga qoray maayarka noqdo magaalada Gabiley cidii wada shaqeyntu ka dhaxayna saarada isaga yahay waxaan ka aqbalay inaan dib u dhigno ilaa maalinta codsiga ee Sabtida oo wasiirku taleex Britoola ka soo noqonayo khamiisadu sidoo noo sheegay barasaabku isla markaana jimcaana hanasto Sabtidana ha dhacdo arintaas isagoo idii yimaado inuu halka yimaado isagoo shirkana qabto annagu cid kale uma tagayno sharciyada waxay nafartay mar kaliya ka leexan min hal point loo jeedinayo laakiin mar iyo laba iyo saddex ba ergada waa la aqbalaa islaamkuna hanala arko caalamku hanala arko inaanu annaguna ku dhawray iyadoo xalay toolo dhan la abaabulay cid annaga nagu shiiday magaalada Gabiley waxaan ka xumaanay inaanu milyan iyaga kun qof ka badan anagu ku abaabulno yeelimin anagu amniga waa la sugeynaa nabadgelyada waa la sugeynaa xukuumadda waa la shaqeynaa waxaan codeer madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaan leeyahay horumarka dalkii kale laga qabtay Gabileyna laga qabtay dib u dhac baa anaga nagu dhacay waa mahadsan labadii maayar ee naga horeeyay wax qabadkooduna waa wax muuqda khatro 8 bilood joogtay waxay qabatay caalamka oo dhan waa ogi Ahmed Samir oo 8 bilood joogina caalamka oo dhan wuxuu qabtay waa ogi sanadii 6 bilood baan joognay albaab rinji ma naan marin madaxweyne waxa meesha yaala waa deyn mar labaad baan ku sheegay waxaad xariga ka jirtay waa deyn dad leeyahay ee maaha waxaan soo iibinay beenwey deyntan la wareegna ayaan wili hadana lagu leeyahay mushaarkii baan qaadanay shalay toole markaan anagu hadalay torture kaga soo baxo ama ku soo baxay waxaan mar labaad ku sheegaynaa hadii laga shaqeey waayo horumarka gobolka annaguna waxaan ka shaqeynaynaa dhismaha xukuumadda iyo horumarka horaba waan ka soo shaqeynaa ilaa maalintii kulmiye bilaabay ilaa maanta kulmiyana waa la shaqeynaa campaign manager baan noo soo ahay maanta inaan nalaga cusbi ahaan loogu hanjabno wada macaarib baa taxaqna looguma la taxaqna looguma la sidaad ugu soo samirtay si ka badan ma ugu soo samirtay dalka ilaa maalinta halgamiseed heemaan loogu timidaan anagu ku agsho oo ku waardiin dhisad dhexe gidaar ku jiif sidee maanta loogu wada wax tahay macaarib banihid xukuumaddaanu taageersanay madaxweynaha jecelahay waxaan leenahay horumarka caalamku gaaray mid lamid aan doonaa afar laba mashruuc oo GPLG lahaaba Gabiley ka fulay oo la isku sawiraa taas nama afacayso
somalilandna waxay ku caan baxday inay mar walba wixii wanaag ku imanayo ka shaqayso annaguna waxaanu ka shaqeynaynaa wixii wanaag ku imanayo ummadayada u dana doonista ummadayadaan ku shaqeynaynaa waanu aqbalay ergadii noola yimid barasaab waananu ku sharafnay sharciguna wuxuu uu noo oggolaa waxaanu ku ilownay maadaama uu mas-uulkii gobolka ugu sarreeyayahay inaanu codsigiisa qaadano sugnana waanu sugaynaa waananu qaadanaynaa waktigaa uu noo qabtay baanu sugaynaa waxaananu leenahay war kuwiina doortay adiga ku doortay baa shacaybuu joogay kuwa yaryareed magaalada dadka shiida leedahay kadaa magaaladana maaha inaynu rabis iska gelino maalintii lagu dooranayana rabshidi may dhicin maalinta maayarka cusub la dooranayana rabshidi dhici mayso dadkana inaynu wax u qabanno ayaa waajiba wasalaamu calaykum intaasi kadib waxaa hadalka qaatay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo u mahadnaqay sida ay xildhibaanadu uga ajiibeen codsigii wuxuuna yidhi kuwaadna iyaga saarantahay inay nabadgelyada nala sugaan waxaanu ka codsanay inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay sugaan balantii wasiirka taana way naga aqbaleen waana ku mahadsanyihiin iyagoo ilaalinaya dantii dadkii soo doortay iyo degmadii iyo gobolkii loo soo doortay nabadgelyadiisii degmadii loo soo doortay nabadgelyadeeda iyagoo tixgelinaya runtii waa iga aqbaleen waana ku mahadsanyihiin siday noo sharfeen waxaanu ilaahay ka baryana uu sharaf iyo ciis u siiyo tan kale aan doonaya inaan caddeeyo waxaa weeye waxaa jirtay in ay xildhibaanada annaga aanu is aragnay hadda ka hor warqaddii inaan ka qabtay una seexay laakiin aan ka codsaday laba qodob inaan mediana ka hadal isla markaana aanay fadhiisan inta maayirku ka maqan yahay dalka wixii ka dambeeya hadday doonaan hadlaan hadday doonaan waxay doonaan oo kale waajib ah oo dastuuri oo sharci ay ku dhaqaaqaan intiina taan horena way iga aqbaleen intuu maqnaana may hadal maaragtay dib dambana aniga igalamay soo noqon wax khilaaf iyo murana tiina arrintiina imika waxay taagan tahay xildhibaan waa wasiirka arrimaha gudaha sharciga soo qoraya xeer 23na waxa weeye amarka ugu dambeeya qabashada shirka isagaas kale in isagaa soo fasaxay odhanaya shirka hal qabto sabtidan idinka is arki doona anna waxaan idinka ballan qaadaya saaka ugu dambaysa anigii wasiir xigeenkaanu ka wada hadlayna in aanu wasiirka ugu dibano xildhibaanada intii badnayd waa joogaan wasiir arrintaa go-aan ka gaadh oonu gaadhsiino isaga oonu gaadhsiino madaxweynaha intaa waanad ka ballan qaadaya median on ka hadlayaa oo taa codkayga waa gaadhaya si shaksi aan waan ugu tegi doonaa anigii iyo barsaab xigeenka iyo ciddii qusaysaba arrintaa waan uga wargelaynaa waxaan idka codsanaya waxaa weeye degmadani mas-uuliyaddeedu waynu wada saarantay kasokow inaan anagu inahay maamulka gobolka oo annaga ayna saaran tahay lambar one haddana gacmihii iyo indhihii aan ku socno waa idinkaa dadkeedu soo doortay dadka nooga faradhu dad ku dhex jira inaad nala shaqaysaan waa muhiim wey kursigaasi qofka ilaahay u qoray waa imanaya qofka ilaahay u qoray waa imanaya saacaddu u qoray inuu ka tegaya waxa weeye idinkan idima lihiin wixii aada awooddiini ahayd ka taga annagu marnaba niman idin odhanaya wix awood aad u lahaydeen ka guura manihi laakiin waxaan idin leenahay isla sugno wax idinka idin gaala ma aha golo deegaan ahaan wax Gabiley ku kooban ma aha golayaasha kale oo dhan saasaa u taageen intoodii badnayd te waa qasab go-aan laga qaataa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu wasiirku wuu ku qasbaya inuu go-aan qaataa suu doono go-aankaas ha noqdo marka waad mahadsantihiin shacabkan waan u gudbinayaa in xildhibaano ixtiraam leh oo runtiina karaameeyaa tihiin nala ilaaliya nabadgelyadaa tihiin maanta imtixaanada socdaan aan imtixaanadii rabshad ku furin waan ubadkii maanta dib u dhigin in imtixaanadii ka hadhaan tihiin halkan oo kusoo gabagabeynaya warkiina noo qaadi doonaa mar haddii dadku kala duwan yahay waa iman kartaa nabadgelyo daro laba qofna hays dharbaaxeynay nabadgelyadaas anaga kama suga kulankii waxaa loo qabtay iminka fadhigii xildhibaanada sabtida hadna waxaad tiri maalinta waxaad kulmi doontaan wasiirka markaa maalintaas maalinta rasmiga farsanay waxaa weeye anigu saan kuu sheegay waxaan ku heshiinay iyaga iyo wasiirku ballan sabtidii lahayd islaam la-aan aawadeedna waa ta keentay in la isqancin waayo dabeedna ay nimankan arrinta ka biyo diidaan ballantii qaabkay u dhacday waxaan ku qanciyay wasiirkii musafar ahaa inay sugaan ilaa sabtida is arkaan dabeedna maalintaa go-aanka qaadanayn iyaga xusaysaa mid aniga yeelma gudoomiye waxaa jira mas-uuliyiin sida la sheegay ku dhex jira xukuumadda dhexe ku jira oo gobolka kasoo jeeda oo ka dhan ah xildhibaanadan islamarkaasina aan ogolayn inay fadhiistaan taana wasiirka magaranaysa ay kala tashadeen ma arrintaasaa sababtay markaa in wasiirku uu go-aan cad sii waayo horta mas-uuliyiinta gobolka dee ka dhashay mas-uuliyiinta ah waa mas-uuliyiin qaranka mas-uuliyiin u aawey dalkao dhan bay mas-uuliyiin waxaa kasoo jeedeen gobolka laakiin way jiraan way dhici kartaa anigu ma hubo
laakiin waa dhici karta qaar la socday qaar la socda baan arkaynay oo xildhibaanada taageersan oo YouTube-ka ku jira iyo website-yada waa dhici karta weli maan arag laakiin qof le waan diidanayna shaqo qabsadaan oo gobolka soo jeeda hadlaya waan aragnay xildhibaan ka soo jeeda oo la taageersan laakiin waa wax dhici karta laakiin waxaan anigu odhanayana hebel iyo hebel weeye deemaan anigu cid ii timay waxaan idin sheegay cid ii timay oo igu tiriyaan shirkaas dhici inaanay jirin xitaa wasiirka arrimaha gudaha lama soo hadlay ma oran shirkaas ma dhici karo laakiin maadaama siyaasaddu ay tahay ilaa amar isaga ka helo isagaan sugaynaa iyagana balan bay leeyihin shaqadana iyagay ka dhexaysaa iminka anigu waa maaragtay maanta wasaaradda arrimaha gudaha go-aanka u yaala anigii ma yaalo si kastaba ha ahaatee shirkan jaraa'id ee xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ku soo beegmaya xilli dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley ay u dhagtaagayaan waxa ka soo bixi doona fadhiga aan caadiga ahayn ee maanta loo balansanaa waa Jaafar Awil Hereri shabakada wararka ee Gabiley News magaalada Gabiley.